بدلات اللي بدلها هي دستورك الصومالي اسكو حي waxaan anoo ku hadlayo magacooda xildhibaanada dhowr 70 ka ah oo warqadan saxiixay madaxweynaha aan fariin u direyno aan leenahay madaxweynow hawlo badan baa qabatay wixii aad qabatay xaq saarin Soomaali in la isku keenay u baahan tahay maantana wax badan baa la kala maqan yahay kuwa kale joogaana inay tagaan laga baqayaa bedelaada dastuurka dastuur in la dhameeyayna wax kama qabin laakiin wax ka bedelka waxaan ka baryaynaa ragga aad adeejisay in laga joojiyo waxa ay wadaan oo aysan waqtiga ku haboona aysan ahayn hadda hawlihii lagu jirayna waxaan naga xagal daaciyay waxa weeye wax aan loo dhamayn oo aan loo wada jirin oo la wada rumaysnayn ayaa la aaday labada gole ee aqalka hoose aqalka sare oo dhamaantood oo maanta ku shireen hotel yiraahdo Paradise 71 xildhibaan waxa lagu hadlaa micnaheedu waxay tahay cidii diimaanay dastuur dhameystiro laakiin wadada loo marayo qaldan wadadaas way qaldan tahay shaadimo dhowr mar loo sheegay dad guluub gooniya wato wax guluub gooni watanan ma soconaayo wax umad Soomaaliyeed iska leh shakhsi ma la hebel qof Allah ma jirto meeshaas waxa ka socdo wax hayaayay ma ah hadda deerato isla bari hal ansixiyo meesha la geeyay la iska rabaa dastuurkaas aniga raal ka maniin mana u socno wax ay ku wadaan meesha waa qalad dastuur cid casxiis am cid ka shaqeys idiida malaha dastuurka bilaa dastuurka dhan wada cusub yahay dad gooni wax wataan waa wadanka looma dhamo maan biloo dhamo looma dhasal hadda looma dhamo wax loo dhanyaa ma jirto shee'aadan wuxuu ka sameeynaa baarlamaankaas asiyo kooran 10 qodob fadhiyo oo leeyahay burskiga ugu fanaa islaan la Saudi Farin bay joogto 10 qof hadii fadhiyo Farinskiga ugu fanayso dadka Puntland ka imaado oo Saudi hogaaminayso oo xilwaanada oo Puntland ka imaadeen oo Saudi Farin ba kamid ah iyo timcad baarlamaankaas dhawaato ku heysaan iska daaya baarlamaankaas dibka ku heysaan ka dhaafa baarlamaankaas idinka dib ku haayo ina hasdin doorashada Puntland loo qabanay xamar loo qabanayo xamar is qabanaysa ma laha reeyada ka bixiya taandidaas waa la aadaya cid laga baqay ma lahan waxba isku daalinina dadkiin wax la qaba سعيدني هذا الهشيء لو قرأوا تجسان هذا الهشيء إن الهشيء حكفي عن مالهن مثلا حشق مدحوينو تهاي وقت يرسنهن كمدي دنين ودلالة ودا لكن واحد السعودة أنا كمان قرأ السنين أنت تسيو حلوة شيء ولا نحن مري هشيء لو وضع لي لو وضع مفلنين تصور لو وضع سبيه هاي marka waxaan ka rabaa xukuumadda iyo teamkoodaba waa ina sida ay ku wadaan raalka manihin waxa raalkan ahay dastuur wada dhan yahay oo la wada ogol ah oo Soomaali dhan wada ogoshahay gogol weyn la fidiyo degmo mintuul la tago oo dadka inay raalkan yihiin ayaa la rabaa war saxaafadeed Muqdisho Maarso 18 2024 waxa maanta shir isugu yimid shir maalmahan socday oo u socday xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadiisa gole oo ay ugu tashanayeen arrimaha dastuurka ayaa maanta waxa ka soo baxay war murtiyeed xildhibaano gaaraya 71 xildhibaan oo maalmahan shir ugu socday magaalada Muqdisho ayaa waxa soo saareen war saxaafadeedkan anagoo xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya labadiisa gole oo shirar in muddo ah u socday waxaan walaac xoog leh ka qabnaa habka iyo hanaanka loo bedelayo dastuurkii iyo qaab dhismeedkii dawladeed ee heshiiska lagu ahaa taasoo dhaawacaysa midnimada iyo xasiloonida siyaasadeed ee qarankeena in waxa la wado uu yahay dastuur cusub waxa cadayn u ah waxa wax laga bedelay 45 qodob iyo 97 farqadood waxa lagu soo kordhiyay 19 qodob iyo 94 farqadood oo aan ku jirin asalkii dastuurka sidoo kale waxa la tiray 3 qodob iyo 26 farqadood oo ku jiray asalkii dastuurka waxa soo isbedel ah waxa lagu sameeyay 4 cutub oo kaliya sidaa daraadeed halka waxa ka muuqato oo ka cad inaysan ahayn dhameystir dastuur ee ay tahay digaarin iyo dejin dastuur cusub markii la dejinayo ay u baahan tahay talo iyo hanaan sida hadda wax loo wada ka bedelan sidaa daraadeed waxaan halkan ku cadeynaynaa
in guddoonka baarlamaanku uu ku guuldaraystay ilaalinta kala madax bannaanida hay-adaha dowladda, gaar ahaan madax bannaanida baarlamaanka oo ah hay-adda ugu sarreysa dowladnimada Soomaaliya. 2 in go'aankii heshiiskii golaha wadatashi qaran May 2023 aysan ahayn kuwo loo dhan yahay, maadaama Puntland ay ka maqnayd shirkaas. qaabka ay go'aanadu u gaaraan golaha wadatashi qaranna ay tahay wadar ogol. in uusan jirin habraac la isla ogol yahay oo loo marayo dib u eegista dastuurka, maadaama aan la qaadanin aragtidii doodii xildhibaanada dhacday 28 iyo 29 Agost 2023 ee ahayd habraaca loo marayo dib u eegista dastuurka, beddelkeeduna la qaatay rabitaanka cid gaar ah, taasoo xildhibaanadu dhammaanteed ay ku codsadeen soona jeediyeen dastuur ummadeed waxaan u noqdaa inuu ahaado mid daahfuran, cid kastoo talo ku lehna laga talageliyo, qaabkan sixintiisuna ay noqoto qarsoodi, taasoo la baalmaray. kadib markii xildhibaanadu ka gadoodeen sida wax u socdaan, guddoonku goluhuna ku dhawaaqay habraac aan loo marin hannaan sax ah in la ansixiyey, in jadwalka waqtiga loo asteeyey dastuurku uusan ahayn mid u qalma dastuur ummadeed, in daahfurnaan iyo ka wada qaybgal loo dhan yahay aysan jirin, in haddii in qaabka sida wax u socdaan haddaan wax laga bedelin oo la joojin ay khatar ku tahay midnimadii iyo wadajirka dalku. sidaa daraaddeed xildhibaanada go'aankan iyo war-saxaafadeedkan maanta ka soo baxay waxay soo jeedinayaan oo may go'aansadeen, waxaan caddaynaynaa inaan qayb ka ahayn been abuurka dib u eegista dastuurka, waxaana aaminsannahay inuusan noqon karin dastuur ummad lagu dhaqi karo, Soomaalina midayn kara, natiijo siyaasadeed oo heshiis lagu yahayna aysan ka dhalin karin. wabilaahi tawfiiq. waxaa halkan ku saxiixan 71 xildhibaan oo ka kooban labada gole. aad baad u mahadsantihiin.